madaxweynaha talada ka sii degaya ee Muuse Biixi Cabdi ayaa loo haystaa hanti qaran ku leeyahay oo uu si gaar ah u maamushay iyada oo uu qaybo ka midana ku naasnuujiyay family-giisa. Biixi oo ay 3 maalmood oo kaliya uga harsan tahay xil wareejintiisu ayaa la kulmaya isla xisaabtan. goobaha sida weyn loogu eedeynayo madaxweyne Biixina waxaa ka mid ah Hargeysa Kilaab oo uu murankeedu soo laba kacleeyay Suldaan Siciid Yuusuf Ducaale ayaana soo bandhigay sira waaweyn oo ku duugan goobta tan sidii gacantiisa looga saaray. ma laga soo celin karaa haddaba madaxweyne Biixi iyo qoyskiisa hantida danta guud ee lagu tuhunsan yahay inay gacantooda ku jirto? maxayse yihiin siraha waaweyn ee uu soo bandhigay Suldaan Siciid Yuusuf Ducaale? warbixinteennan ayaynu ku falaqaynaynaa qodobadaasi. 7 sannadood ee uu talada hayay ayaa si weyn farta loogu mudaayay madaxweynaha xilka ka sii degaya ee Muuse Biixi Cabdi, iyadoo si weyn loogu eedeynayay inuu hanti urursi ku jiro, sidoo kalena family-giisu ay qayb weyn ku leeyihiin qaadashada dhulka danta guud iyo mashaariicda waaweyn ee Soomaaliland. waxaana marar badan aynu maqalay madaxweyne Biixi oo ay ka cabanayaan dad shacab iyaga oo ku andacoonaya inuu ka qaadayo dhul ay lahaayeen. madaxweynaha ayaa weli huwan haybadii qaranka inkasta oo la doortay madaxweyne kale, isagana shacabka Soomaaliland ay kala noqdeen kalsoonidii. balse isla xisaabtanka iyo in 7 sannadood ee uu talada hayay wixii uu horumar sameeyay iyo wixii uu hanti leexsaday lagala xisaabtamo ayaan ahayn mid ceeb ah. nidaamka dawladnimada iyo dimuqraadiyadda ay Soomaaliland haatan ku hana qaadayna waa sharciga uu dhigayo in lala xisaabtamo madaxda xilka sii banaynaysa iyo tan imanaysaba. Hargeysa Kilaab ayaa waxa maal gashanayay Suldaan Siciid Yuusuf Ducaale, waxana uu haystay wareegta madaxweyne oo ku siman 50 sannadood. balse madaxweynaha talada ka sii degaya ee Muuse Biixi Cabdi ayaa kaga joojiyay wareegta wasiir. inkasta oo aan xilligaasi la qaadanayn, Biixi damaaci ayaa ka galay hoteelkan. balse siraha uu maanta soo bandhigay Suldaan Siciid Yuusuf Ducaale iyo sida ay wax u jiraan oo ay warbaahinta xogogaal baadhis iyo dabagal dheeraad ku samaysay ayaa waxa ay noqdeen kuwo is arooraya tallaabooyinka uu madaxweynuhu waqtigaasi qaaday iyo sida haatan qoyskiisu u maamulanayo hudheelkii. Suldaan Siciid Yuusuf Ducaale ayaa waxa uu sheegay in madaxweyne Biixi uu xataa dharkiisii qaatay oo waxba aanu uga tegin markii uu kala wareegayay hudheelkan Hargeysa Kilaab oo maalinimadii shalay ahayd xaliga laga jaray. madaxweyne Biixi ayaana waxa uu sheegay niman odayaal ah in ay maal gashanayeen kuwaasi oo waxba ka qaban waayay. sababta uu uga wareejiyayna ay taasi ahayd oo hudheelkii haatan uu dhisan yahay uuna yahay xarun ay dawladdu leedahay, balse sida xaqiiqo ka duwan ayaa jirta. hoteelkan Hargeysa Kilaab ayaa waxa maalgelinteeda uu siiyay madaxweyne Biixi inan uu dhalay sida ilo wareedyo hoose xogogaal u xaqiijiyeen. sidoo kale shirkadda qadaraaska qaadatay ayaa iyaduna family-ga ka mid ah. warbaahinta xogogaal ayaa waxa kale oo ay ogaatay inuu haysto Suldaan Siciid Yuusuf Ducaale wareegto 50 sannadood ah oo madaxweyne, taasi oo aanay burin karaynin wareegtada wasiirka ah ee lagaga xanibay. lambar 2 madaxweynaha talada haatan la wareegaya ayaa ballanqaadyada ugu horeeya ee uu fulinayo waxa ka mid ah inuu Hargeysa Kilaab ku soo celiyo wareegta madaxweyne oo uu ugu wareejiyo mar kale Suldaan Siciid Yuusuf Ducaale oo haysta wareegtadii madaxweynihii hore ee Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo, taasi oo gaarsiisan muddo 50 sannadood ah. madaxweyne Biixi ayaa la kulmi kara isla xisaabtan lagaga soo celinayo wixii dan guud ah ee ay dadka reer Soomaaliland wada lahaayeen oo ay si gaar ah u meelaysteen family-giisu. in la boobo dhulka danta guud ayaa ahayd sanadihii ugu dambeysay mid ay ku hirdamayaan ama se ku loolamayaan ganacsatada iyo xukuumadihii Soomaaliland u kala dambeeyay, waxaana ay noqotay wax iska caadi ah. madaxweynaha hadda talada la wareegaya ayaa haysta awood iyo jaanis uu ku soo celiyo wixii dan guud ahaa ee hore loo boobay, ficilkaasina uu xukuumaddiisa kaga mamnuuci karo